qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركل كسو دواada muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan halkan kusoo baahin jirnay ee ku saabsanaa maadada Ingiriiska gaar ahaan grade-ka 8aad markii noogu dambeysay waxaan joognay ama waan ku jirnaa wili unit-ka 3aad ee weather and environment ka wuxuu ku saabsan yahay marka write on wax qorid dabcan wax la qorayo waa warqad waxaynu ku qoran tahay page-ka 44aad wax qoridda marka oo title-kiisu wuxuu yahay write a letter warqad u qor either midkood to Nasima in Bangladesh Nasima oo Bangladesh joogta or to Wardo in Netherlands ama Wardo oo joogta Netherland marka warqad qoraysid waxa jira qodob ka caawinaya inaad warqad qorto oo buug ku qoraayo ama ku sheegayo qodobadaas waxa kamid ah qodobka koowaad tell them iyagu sheeg about the weather jawiga in Somalia in the rainy season xil roobaadka qodobka labaad oo asagana ka qayb qaadanaya warqad qoristaada waxay tahay tell them iyagu sheeg about the crops dalagyada you grow aad beeratid ama aad beeratiin qodobka saddexaad wuxuu yahay tell them iyagu sheeg what things waxyaabaha are difficult ay adag tahay to do in la sameeyo in the rainy season xil roobaadka bigan u bilow warqadaada like this sidan oo kale u bilow okay warqad sidan u bilaabaysa marka dhinacaas midigta ee kore waxa ku qoraysaa box yani boxkaada waa 7301 waana box yar oo guryaha horta lagu dhigsado halkaas oo emailada wixii lagu soo diray lagu soo hagaajiyo dabcan kan tusaale waa 7301 waxa ku xijinaysa address waa goobta joogtid this is waa example asagana wuxuu leeyahay Muqdisho Soomaaliya wuxuu joogaa dabcan qofkan Muqdisho Soomaaliya kadib waxa ku xijinaysa date waqtiga aad dirtay ama taariikhda kan marka tusaalaha ka dhigno waxa waaye 21st January 2022 21st January 2022 waa 22 Janaayo 2022 ayaa la diray ayaan tusaale ka soo qaadanaynaa dhinacaas kale ee bidixda waxa ku qoraysaa dear waxa loo isticmaalaa amaba waa kelimad maamuuseed loo isticmaalo qof xurmad kugu leh amaba u isticmaali kartid qof sharaf iyo xurmad ka mudan marka ma cadaysaa dear Wardo walaal qaali ah Wardo how are you sidee tahay I hope waxaan filayaa ama rajaynayaa you are well inaad fiican tahay it was waxay ahayd very interesting wax aad xiiso u leh to read in aqriyo about wax ku saabsan the weather jawiga in your country wadankaaga here in Somalia halkan oo Soomaaliya it's rainy season waa xil roobaad okay marka qodobadii marka hore aan soo sheegnay hadda ay caawinayaan marka qodobadaas maxaa dhahaayaan ayaa wax ka qoraynaa the weather in Somalia in the rainy season is well okay the weather in Somalia jawiga Somalia in the rainy season xil roobaadka is well wuu hagaagsan yahay wuu fiican yahay and ranges wuxuu na gaaraa about qiyaastii 23 degrees Celsius up to 29 degrees Celsius wuxuu gaaraa ranges about qiyaastii wuxuu gaaraa 23 degrees Celsius 23 degrees Celsius up to ilaa 29 degrees Celsius ilaa 29 degrees Celsius the crops dalagyada we grow and bearno in the rainy season xil roobaad dabcan marka dhahaysid aan beerna marka dhahaysid waxa hadlaysaa as Somali people okay the crops dalagyada we grow and bearno
in rainy season xil roobaadka are contrast way kala duwan yihiin. Are contrast means are different way kala duwan yihiin, such as sida corns galeyda, sargam masagada, beans digiraha, and so on iyo wixii la mid ah. The things waxyaabaha that are difficult ee adag tahay to do in la sameeyo xil roobaadka Soomaaliya marka la joogo waxay tahay traveling ku safrida by land dhulka from one region ayadoo laga tagayo hal gobol to another gobol kalena la tagayo because sababtoo ah the highways jidadka waaweyn early been distracted goor hore ama xil hore ayaa la burburiyey and the drivers darawaladuna can't attempt iskuma dayi karaan to do inay safraan ay dhulka ku safraan unless ilaa the ground get dry ilaa dhulka uu ka qalalo. kadib waxaa qoraysaa marka intaas kugu filan your sincerely qofka daacadda ku ah dhibcahaas meesha ku yaala dabcan magacaaga ayaa sii raacinaysaa. halkaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa. haddii ay tahay marka ugu horreysay aad soo boqotay janaalka waxaa kaa dalbanna inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahato. haddiise hore aad nagu soo biirto waxaa kaa codsana inaad muuqaalka like saarto. laagta waa dhiirigelinta janaalka. waa mahadsan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.